haddan hadal bilaashiyo benay wax kugu falo ballanqabo ku aamino cashaqow baddaadaba haddii aanan ka bixin wad hawla badatee cashaqow baddaadaba haddii aanan ka bixin wad hawla badatee haddii aanan barisamaadkiyo jacaylkaygii boorame kibulaale iyo hereer barbariyo hargeysa kii banaadir igu helaaye burmadkii kalgacalkow haddii aanan ka baqane buur aanan ka korine بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وحان آدو سلامة يا أصحابتك وحورن شنن كفردوس تنساني وحان أمهد علينا يا أصحابتك عصوبة وصوب بيرتي وحان كلوه المامين أصحابتي هرو فرددي وحان أباقى يا هداي أركان كليب كيغن أصحابتك عصوب وان لا يا أصحابتك صوص عدادات أركتان كليب كيغن بليس وحان إنك عصوبة واللايك شير كومنتي سبسكرايب كوا حقينا إذا شيء ميسو والدي مهد علينا آدي أدبن مهد علينا أصحاب عصوب إيجو صابيرتي أدبن مهد علينا ميت كستو إيجو صابيرنا وانودو عيا وحنلاقي جزاكم الله خيرا جزاء هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان إن إلهي قرآن كيسوح كوري هل جزاء الإحسان إلا الإحسان قفكي وحونا يسسمية ولا قابلنا marka waad ku mahadsantihiin sida wacanaadii soo booqateen marnaba abaalkiina ma hilmaami doono laakiin abaalkiina janna Allah ka dhigo waxaan maanta u duceynaynaa markasta waxaan u duceynaynaa dadka buka ee caafimaadkoodu liito inta dhakhtarada ku jirta inta guryaha jiifta waxaan leeyahay Ilaahay waxaan uga baryayaa waa maalin roob noo da'ayo waa waqtul ijaaba runtii waxaan Ilaahay uga baryayaa caafimaad taama kuwa kurbada hayso waxaan leeyahay Ilaahu kurbada ka fayd kuwii dhibaata kuwa kurbada hayso Ilaahu kurbada ka fayd kuwii muraad la Ilaahu muraadkooda macas lahayn baan ku weydiinay labada xaqdiga iyo xasadka isku haysa waxaan leenahay Ilaahu isku caafi qalbiyadooda Ilaahu qalbiyadooda caafimaad isku sii waxaan kaloo aan u duceynaynaa dadka adduun la'aanta iyo mashaqada كعبانة waxaan leenahay waa maalmo khayr ah waa shabcaan gabagabadeedii shabcaan baa la sugootinaya rabadaan baa la soo dhaweynaya waa xilli anaga roob noo da'ayo waqtiyadii waqtul ijaaba ay ka mid tahay Ilaahay ha iga aqbalo dhamaan idinkuna waxa tiraadaan amiin maanta insha Allah biidmillah waxaan ka hadli doonaa waxa weeyaan kulli sawiradan idin muuqda ayaan mid walba doonayaan inaan doorkiisa ka hadlo waxaa jirta horta waxaan ku horeysiinayaa adduunka muxuu Allah subhanahu wa ta'ala yiri la yadkhulu janna namam ninka namam la idhaahdo qofka namamka ah ayaabaan horta namamka ayaan waxaan leeyahay la yadkhulu janna iska daa inaad gasho jannada urin maysid sanka saa u saarmaysid iyadoo ay saa u wada og yihiin ayaa dadkii la isku soo feynaya oo qabiilo la isku soo feynaya oo dad waxaan ku yiri walaalnimo iyo wanaag ka dhaxeeya la isku soo feynaya waxaan ugu waxyaa dadka isku dira waxa kamid ah YouTube-ka la yiraahdo Soomaalida shidan anigu Soomaalida shidan uma aqaan waxaan u bixiyayba Soomaalida shidaysan gabadhaas agma dhigaani magaceeda ka dhigatay nin iyo gabadh ma garanayo wuxuu yahay waxaan leeyahay Ilaahay u toobadkeen waa xilli si qanbala la iska siinayo waa xilli xaaladu adkaatay waa xilli xanuun jiraan waa xilli aanad garanayn inta lagu soo jiro waa xilli aan garanba qofkii imika ka baxay hadda isagoo gurigiisii gaadhin la leeyahay oo hawalba waynu aqoonsanayn oo way jirtay geeridu hadda laakiin waxa aan ku leeyahay way ka soo badatay intii way ka soo badatay qofkii xanuunsan jiray qofkii ayaa ma soo jiitami jiray qofkii la lahaa hebel ma jiro
waa dhintay corona dilay qofkii sanadkan dhintana waxa weeyaan sanad la leeyahay coronavirus baa dilay taasi waa ta soomaalida shidaysan maanta waxa aan ku soomaalida shidan bay tiraahdaa laakiin soomaalida shidaysan waxa aan ku haystaa waxa weeyaan iyadu waxay dhaleecaysaa YouTube lay qaar oo ay leedahay Safiya Tusmo laakiin iyada waxaaba lagu leeyahay labada qof ee walaalahaaga ah been xitaa waad u sheegi kartaa haddii aad laba qof islaaxadooda iyo wanaagooda aad kala dhex dhigayso oo aad islaaxinayso waaba been baabad sheegi kartaa beentii ilaahay xarimay ee xaaraanta uu ka yeelay Allah subxaanahu wa tacaala ayaa la yidhi haddii laba qof oo walaalaha ah aad ku heshiisaynayso beenta laftigeeda waaba lagu baneeyeyba ma garatay adiguna bismillaahi raxmaani raxiim saasaad madaxa iskugu gelisay nimco degan سعيد محمود كهير صفية تصمو اللهم صل على محمد أديك قرين عيها دنا قبيل بات كهدليس وسي قبيلة سبادو هدليس أديك حنقولنا يا سومالي دا شديسنا إلهي كعبسو إلهي هالله لابتو حتى وحسو قد بنيسو سي أصدادنا وسو قد بي أديك ولا عليها حقد يحمان كلا ديجينين سيدا وسو قد بي وحن كلو عن هايستا هبين دويتوله وحن داوني ماما Somali iyadana inaan magac u soo bixin doona haysa wali waan ka xishoonayaa iyada runtii waan hayaa magaceeda laakiin waan ka xishoonayaa Soomaalida shidan maxay ahaydeen maama Somali iyaduna waxay soo gashaa live-kii waxaan akhrinayay commentiyadeeda sida la iskugu caayayo sida aanay dadka u kala qabanaynin waxa la isku leeyahay tacajabaad u dhimanaysa sababta keentayna إيدورو إساقو راشح إسحاق يا إيدورو يا شيخ يا شريف يا علماء يا عامة ولا أو قبيل ميل دقنة صفية تصمو مو حمينين كي أدونك كحولة طيبة حميجي وأنا دعبا هذيك اللفتقاق وحاد كشي جنسي سوما هنيكاجي قبي وأدباتك شي جنسي ويدعبا ميل كستا ويدعبا guri kasta in gubta hoostaala ama banka soo saar oo adigu banaanka soo dhig ama gabadh aan sida iyo saaba u ooyin horta guri ma dhaqato waana dhici karta waana dhacdaa laakiin wax qabiilo oo weeraray Safiya Tusmo may jirin anigu maanta waxaaba de magac weyn oo sidatood leedahay maama Somali baa la yiraahdaa darteeda أتري ماما صومالي أيابا لي إيدهدا أو ماما صومالي أيا لي إيدهدا أيابا دي إسلها مقعد ما يصومالي دي سيدتايو وحي كم نقون سار دحدحات أرنكا ويكا قرامي أو قربي كقلي دونتا قرنا كما تقليني كومنتيغا قنوات فيرسون دونتا وحادتك سيدا اللي يسوع عايي سيدي هبلوه وحان كولي iskugu jawaabay dambiga ada qaban ku leeyahay adiguna wixii aad ku hadlaysay afkaaga iyo dhagahaagu inay kulay ismaqleen oo mar dambe isdaawan doontana waan rajaynayaa waxaan leeyahay labada qof baan horta intaa ku bahalaynay qof dadka saddexaadan maanta fariinta u diraya waxay tahay waxa weeyaan YouTube leyda qaar ilaahay way ka cabsadaan qaar baan badageli qaar baan waxbaba laakiin waxaan u dirayaa qolada YouTube leyda ha ka saara Safiya Tusmo wixii fiidiyow ay ka hayeen ee ay soo dhigaan wax haday Safiya Tusmo ka naxayaan oo ay ka naxayaan wax haday ka naxayaan laakiin haday fiyuskooda ka naxayaan hadaystaan biliis maanta hiilka ay Safiya Tusmo kaaga baahan tahay waa madaxeedii qaawanaa qof kastooba mee aad inaad ka saarto taasi aad hiil ugu noqonayso waayo waa maamo waa hooyo waxani waxa weeyaa document bay galayaan mail bay galayaan caruur bay dhashay caruurteeda soo kacaysa teedi bay noqon kartaa waxa aad ka haysan waa hal video oo ay timaha rasta u daban tahay halkeeda video ha laga wada saaro YouTube leydu haday ka naxayso Safiya Tusmo oo ay maanta ka naxayaan sidii madaxweynayaashu marka ay dhintaan madaxweynayaasha caalamka waxa la yiraahdaa 3 cisho calanka hoos loo dhigay aniguna waxaan leeyahay bal 3 cisho intaan la gaaray ka horba inta ayna YouTube yadeena waxa aad saarteen ee wada qaawan
waxaa xijaaban iyo waxay iska asturantay dhib male laakiin xabadda kaliyaatee ayna soo gashay ee saa loo wareejinayo saa loo wareejinayo saa loo wareejinayo saa loo wareejinayo ay madaxeedu qaawantay rasada tahay haddaad ka naxayso oo soomaalida shidaysani way haysaa haddaad ka naxayso ka saar haddii aad ka naxayso qolooyinka kale youtube-lado waxaan baaq u diraya lakaha media waxaan u diraya cabdifatax boodhar waxaan u diraya yaasiin haliyey waxaan u diraya dhammaan inta fiidiyoyada la wareegaysa sawirka qaawan xabaddaa sawira kaabaa ka haysaana xabaddaa intaad ka bedeshaan keliyaata waxaan kaloo aan la yaabay ciwaanada beenta ah ayaama la yaab hadda fiidiyo baa soo baxay fiidiyoga waxaa la leeyahay waa sheekhii meheriyey Safiya Tusmo horta qofka adduunka wax kasta oo aan la samayn karin ma jirto anaa gurigayga dhex fadhiyo cod baan iska soo dubayaa allahumma salli ala maxamed sayyidina Muhammad markaasaan leeyahay waxaaban meheriyey sheekh baan hada waa gabadhayda gabadha ah wax waan iska soo duubi karaa wax waan bahalayn karaa culimada aad saaraysaan marka codkii iska dhaafa laakiin culimada aad saaraysaan ee aad beenta ka sheegaysaan culimadu raalle kama aha sawirkooda ha qaadanina haddaad ciwaankiiba wax xun ka dhigtay sheekhaaga sheekh Mustafa iyo sheekh Dirir iyo sheekh Maxamed Idris iyo culimadeena waaweyn hataa faraha ka qaada wax yar oo raqiisa oo waxaan ku aan waxba ahayn oo lacag yar oo waxaan ku gaal bixinayo heede gobonimo darraha ha ku bahalaysanina ha ku galina waa gobonimo darro gobonimadaas gobonimada ka raaca adduun waa la helaa laakiin aakhiro iyo janno lama helo way adagtay sida lagu helaa taasi waa taa waxaan kaloo aan aad ula yaabanahay soomaalida shidan dadka ay sheegaysa sida nimca degan iyo Siciid Maxamuud Gahayr horta Siciid Maxamuud Gahayr waa nin abwaano de anigu Soomaali nimanku ogaa qabyaalad iyo qabiilku maan ogeyn nimca degan way dhici kartaayo de gabadh bay noqon kartaa laakiin nimca degan waxaan leeyahay tusmo garab bay kaaga baahantay Safiya Tusmo waxaa la sheegayaa haddii jirto in adeero waxay kaaga baahantay garab maantay garab kaaga baahantay youtube-leydana waan ku celinayaa Safiya Tusmo maantay garab kaaga baahantay bahalka ay bilaa xijaabka tahay bilaa masarka ay tahay haddaad ka naxayso ka saar soomaalidana waxaa leeyahay u wada share gareeya please share gareeya codkaygan meel dheer gaarsiiya ha laga saaro inantaa gobta ah ee guntu heshay ha laga saaro gub anigu gun kama wado qabiil dhan inaan fadeexadaynayo sheekh iyo shariif bale laakiin qofka xun isaga xun oo gun ah halka shakhsi ee xun ayaaba guna marka waxaan leeyahay laga wada saaro please laga wada saaro please laga saaro ilaahay dartii ha looga saaro waxaan idinkaga tagaa waa maxay please walaalahayga aan jecelahay ee halka maanta ay soo gaarsiiyay waxaan jecelahay inaad meel sare i geysaan wayna subscribe saartaan أنا محنو قد وانا دمرك كلا إيه رجع كلا أفر تبقول جارسيسين الجارسية ما تشعل إن حمان إيه قبيل إيه حقد إيه قاونان إيه حمان عفافية إيه وربين أو أنشرين حقيقة أير آد عن هلا ربعنا دي قلتها غيرتان وحن كلو إذن لا يهاي ورزق عصنا ياه وحن إن شاء الله بإذن الله يعني ديو سوتشرا in dhaqankeeni iyo Soomaalinimadeeni iyo suugaanteeni iyo hadaladeeni sarbeebta ahaa sarbeebtu waxay ka qayb qaadan jirtay hadallada sharafta iyo sumcadda saaran hadaladeeni sarbeebta maamaayadeeni suugaanteeni aynu ka soo gaarnay abwaanadeena soo bandhigaya insha Allah biidbillah waxaan idin leeyahay waxa aan idinka codsadaa waa maxay waa wax yar oo raqiisa like ta saara oo share gareeya oo subscribe oo comment caafimaad qaba tahay xisiyina waan idin jecelahay I love you so much dhammaantiin